maanta ma ahayn waqti la iska soo horjeesto ama la isgees maro ama la kala gaabiyo kii dhuumaanayo dhabarku muuqdo waa dharaar lagu dhowrayaa dadkaaga dhinac ka raac waqtigii la dhihi jiray oo kale ayaa maanta la jooga baarlamaanka sharafta lehna waxaan ku guubaabinayaa inuu garab istaago xukuumadda iyo dawladda iyo madaxweynaha oo run ahaantii awood u yeeshay inuu xukuumadda ama hay'adda fulinta shaqadeedii u daayo uusan ku faragelin waanu ku ammaanaynaa haddaanu nahay shacabkii Soomaaliyeed waxa la yaab ah wax laga xumaado ah xukuumad dhowr bilood jiiday in la maalin kasta mashiin la daba taagan yahay in dad oo mataqaanay aan fiicnayn ay mashiin la daba ordayaan war mashiin wax ma soo kordhinayo oo Soomaalida horu ragaadiyay oo dadka horu ragaadiyay walaalayaal mashiinka naga daayay Soomaalinimada ixtiraama shacab dhalinyarada Soomaali ixtiraama mustaqbalka naga ku ciyaarinina hana nagu qasbinin adinka inta aan nimaano oo guriyeen in kugu nimaano in aan kula dagaalano annagu haddana dhalinyarada Soomaaliyeed waan awoodnaa xilliba dadka waan la wada soconaa miidiyan kala wada soconaa waan wada aragnaa xabad baan inay naqaanaa hanagu qasbinin walaalayaal waan ka xishoonaynaa dad oo mataqaanay miisaan iyo sharaf ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka dadka arrin inaan doornaa tiin haasku keendirnino dhalinyarada Soomaaliyeed maanahay maanta waa soo jeedsanay dalkanaga iyo dadkanaga inaan u shaqeynaan soo jeedsanay ummaddu qaadanayna qabiil u shaqeeye ummaddu qaadanayna qaran diide ummaddu qaadanayna qof aan Soomaalinimada rabin annaga haddaan nahay dhalinyarada Soomaali baan nahay qabiil nagama dhaxeeyo qaran baa naga dhaxeeyo haddii aad ku fakaraysa hab qabiil haddii aad ku fakaraysa dawladda lacag ka soo qaadatay walaalayaal ka diidnay Soomaaliya lacag ma qaadato walaalaha Soomaaliyeed ee Soomaaliya dacaladeeda ku kala nool waxaan u sheegayaa maalin walba in la keeno mooshin aan ku habboonayn horu socodka dalka looma baahna waxaa loo baahan yahay wixii dalka iyo dadkuba ku hagaagayaan diinteennuna ku yeelanayso nur xor aanu higsanno ma ahan in guryaha iyo kuraasta aanu fadhino 24 saac mooshinka dhexdiisa dadkii la rabay in hore u wadaana inaan qofkii dalka iyo dadka wax u qaban lahaa aan la daba taagnaano madaxa inaan buris uga garaacno ma ahan naana kuma habboonid taas waxay dhalaysaa in sanad kaliya dawlad walba ay dhisnaato oo la burburiyo aan ka gudubno Soomaaliyay waxaan soo jeedinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan soo jeedinayaa walaalayaal Soomaaliya ha noolaato haddii dan shakhsi ah ama dan group ama dan xisbi loo zaczac loogu sameeyo loo karbaasho mu'assasaadka dawladda dembi weyn oo la galayo waay dembi xaaraana waay xadiidkaas ayaa daliil cad u ah li'annahu wax ummadeed haddaad wadid waxa ummadda waxa waaye inaad mu'assasada iyo mu'assasaadka aad xoojisid waay inaad dhaawacdid ma ahan waxyaabaha annaga aan xataa 10 sano ugu dambaysan dawladnimada xoogaa aan yagleelaynay dhulkana dhiga waa maxay maqaasidii dalka oo lahay waxa looga mashquulaa danahaas gaarka ah group iyo group shakhsi raacdeenayo madaxweyne ra'iisul wasaarihiisa la dagaalamayo wayna soo martay oo bixinayo xildhibaanadii ku dhex meeraysanayso u saar lahay meesha ka saar lahay ra'iisul wasaare madaxweynihiisa isaguna maaragtay laacaya oo isku daya isaguna inuu baarlamaanka ku rido maanta oo dhan iska daba wareeg ayna masaalixul umma marka ayna masaalixu balad meel baa la iska dhigay arrintaasna arrin xaaraana way dib inaan ugu noqono ma aha waxaan nasiib wanaaga maanta madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo baarlamaan laba aqal oo meel u wada jeeda iyo aan ina haysan iyo garsoor madaxda garsoorka waa fadhida meel u wada jeeda oo qaranka inay wada shaqeeyaan rabay wada tashadaan waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka in nala ka ilaaliyo in dibna loo celiyo waxa badaha ku daadanaya waa dhalinyaradeena dalka la guriyeynayo la rabo in la baabiyo keena wey ma ahan dalka leeto dawladaha ajnabiga waxay u soo yaacayaan waa dalka inay baabiyaan kuwa saxrad degan oo doonaya dalka inuusan horumar samaynin oo dekadihiisa ka baqaaya bacda 20 sano 30 sano inay noqdaan dekadaha adduunka ugu waaweyn oo dhaqaalaha ugu badan adduunka ku soo dhacayo oo dalalkooda dhaawici kara oo aaminsan yihiin inay mowqac ay ku yaalin maadaama Soomaaliya ka istiraatiijisan tahay Soomaaliya cirin geli karto ayaa maanta waxay ku rafanayaan xubna annaga naga mid ah si dalkan ay dib ugu dhigi lahaayeen oo dalkan xarbi ali soo bixi lahayn ilaahay aan ka baqno dalkeena aan naxno ummadeena aan u turno imaqal shacabka uu imaqal ninkii doonaa hamiro mushkuladaha wada socdee ra'yigu waa mala awaal markhaati waxaan ka ahay haddaan loo noqon macbuud waxaan mawluhu jidayn inaan meel lagu tagayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.